Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhammaan macaamiisha ku xiran janaalka KM Studio. waxaan leenahay subax wanaagsan, qofkay galab u tahay galab wanaagsan, qofka habeen u tahayna habeen wanaagsan, qof walba waqtiga u tahay oo wacan oo wanaagsan. Runtii maanta waxaan idiin wadnaa kareemka la yiraahdo olive oil and mango butter. Runtii kareemkan waa kareem timaha u fiican, waa kareem timaha maasha Allah kaaga dhigayo, waana condition nafaqay wadataa. waa kareem muxuu qabtaa, wuxuu u fiican yahay inta breakage timaha jajabka, wuxuu kaloo u fiican yahay timaha daadanayo, wuxuu kaloo u fiican yahay timaha oo qaleelka iska naqanayo, oo haddii saliid la mariyo, haddii qofku wax walba oo marsado iska qalalayo. runtii timaha isku mid ma ahan. kareemkana sidoo kale wuxuu kaloo u fiican yahay timaha oo wuxuu ka dhigayaa mid oo qoyan, wuxuu kaloo u fiican yahay timaha woo bixinaa, wuxuu kaloo u fiican yahay timaha nafaqoo siinaa, wuxuu kaloo u fiican yahay timaha allahu mustacaan timihiio maasha Allah kaaga dhigaa, timaha kurismada timahoo ka qayb qaadana, timihii bixinaa. runtii kareemkan qofkii barto oo tintiisana ay barato, runtii kantu iyo waxaasi afaarahaasna maxaa u baahnaanayo. runtii kareemkan waa kareem professional oo qualitygiis maasha Allah waa kareem la hubo oo boqolkiiba boqol ah, waa kareem timaha kuwa bixiya. waa inta badan ragga iyo dumarka waxaa waaye boqolkiiba boqol way isticmaali karaan, waana anfaca. runtii kareemkan haddaba waxaad ka heleysaan dukaanka Saadiya Cosmetics iyo meel walba oo xarumo ganacsi ku yaala oo shopping lagu gado, inta badan waad ka heleysaa insha Allah. marka runtii kareemkan tayadiisa waa tayo aad la hubo oo tayo sareysa. runtii kareemkan yaa lama ogaanana, intaas idin dhiilahay. runtii qofka timihiisa uu bixi weyso, runtii qofkii timihiisa qaleel ka naqanayo, qofka timaha kasii siimaayo, qofka timaha damage ka qabo, runtii kareemka xalkiisa buuxdo waaba loo helaybo. runtii kareemkan waa kareem aan caadi ahayn. aniga horta been idiin sheegi maayo, waa isticmaalaa maasha Allah. waxyaabo badan waa ka dareema oo dhanka timaha ah. waxaa ka mid a timahaygii hadda qaleel oo ku arki jiray, hadda saa u isticmaalo baalkan u isticmaal bilaabo baan dhehe, runtii waxaan ka dareema waxyaabo badan aan la soo koobi karin. runtii haddaad rabto xataa baalkan timahadaad marsanaysaa waa iskaga dhaafaysaa, mafahanti. wax hadda oo cilad oo kuu keenayo effect inside oo la yiraahdana ma jiraan, mafahanti. waaba timihii u fiican yahay, halka timihii oo la helo waa baal excellent oo fiican. waa qaabka loo isticmaalayo hataan idiin sheegno. kow marka horeeta timihii aad iska dhaqaysaa, dan waxaad soo qaadanaysaa shukumaan, timihii waad qalajinaysaa. markaad qalajiso dan waxaa waaye asigaad soo qabsanaysaa, waad isticmaalaysaa, mafahanti. ilaa lafta dhuuxa madaxa waxaa la rabaa geesna inaadan ka tagin, meel walbaan ku dhahay inaad ku mariso. waxaa la rabaa maasha Allah si kal ilaaba u marsato, marka madaxaadana wuxuu kaaga dhigaya refresh oo kal ilaaba. runtii baalkan waa la ammaanaye, yaa la moogaan. waa xalkii timaha. inta badan hadda gabdhaha baalkan u fiican yaaba, hadii ragga qaarkood haddii inta badan dhifdhif leh waa moogtahay, laakiin gabdhaha dumarka siiba dumarka timaha ka siimaayo, dumarka timaha u bixi waayo, timaha kuwa oo yacni maxaan dhahaa oo qaleelka ka noqdo, timaha iska gurmaaya markii la shaleynayo oo kale. runtii xalkooda waa loo helay, waana kareemkan. midda kale dukaankan waxaad ka heleysaan saliiman oo herbal ah oo dalka lagu sameeyey oo misna damaanad leh. waxaa ka mid a saliidaas oo kale, haddii aan hal iyo laba idinka sheegno, waxaa ka mid a saliidaan la yidhaahdo axlaam, waa saliid ayadana herbal ah. waxaa kaloo jirto saliid kale oo ayadana kuweyt lagu sameeyey oo ayadana damaanad leh. saliidaas kalena ayadana qaabka loo isticmaalayo ayadana waxaa waaye video galaan wada soo hadli doonaa insha Allah, oo aan kasoo sameyn doono, kasoo diyaarin doono. balse hadda waxaan idiin wadnaa oo idin sheegaynaa oo idinku dhiirigelinaynaa oo aan idin leenahay inaad isticmaashaan boqolkiiba boqol kareemkan. kan caagiisu gisiciisu wuu weynyaa 900 garaam waaye. runtii kan badaa isticmaashaa ku dhaa qaadato tintaada wax badan waad ka nasanaysaa. timihii gogo-ayey, timihii qaleelka naqanayey, timihii oo iska adkaadeen oo shallada xataa gelaynin, wax badan waa ka nasanaya. hadda timahaada time u ekaanayaan korismadoodii, muuqaalkoodii,
bixitaankooda qaabkay u baxayaan waxyaabo badan u fiicantaa. runtii dukaankeenan wuxuu ku yaalaa bakaaro daawada. telefon nambarkiisana waxaa waaye hoosaa idin soo dhigi doonaa insha allah descriptionka. linkiyaasaa soo raacaysaa calaa duul. waxa waaye hadaad gobol joogto waa lagu soo dhiibaa, hadaad muqdisho joogto sidoo kale, hadaad noo imaan kartana kabase fiicanba. marka runtii hadda waxaa rabnaa inaan kasoo hadalno mardhow kareeman kala duwan oo cusub oo abdheedo la keenay suuqa kusoo kordhay. marka insha allah asxaabay waadha ku mahadsantihiin qaabka wacna noo dhiirigelinaysaan. waxaan ileenahay noo laag garee, noo shar gareeya, noo subscribe garee, commentiga waa xaggiini. runtii bahalkaa noocdii isticmaashatay inay ku jirtana kule malaa dibadda waa laga helaaye haddii isticmaashay commentiga noola wadaagto waxtarkiisi. wallaahi bahalkan intoosan idinka dhammaanin yaa oo idinka baabi'in ha laga faa'iideysto. waa quality professional. timihii waa nafaqeynaysaa, conditionkeeda way wadataa, adig iyo jajabba isdhaafaysiin. culeyska cabashada badnaa oo dhan waa kana sane oo dhanka madaxa ma fahamtay. runtii faa-iidooyin fara badan oo xambaarsan yahay. dadka inta badan ma fahansana, laakiin insha allah midmid waa ugu soo qalli doonaa. gareemkana runtii waxaa lagu sameeyey waa mareykanka maadin USA. runtii gareem oo waxaan ku tilmaamo maba aqaano, haddana caraftiisa wax walba kaaga sii daraba sida uu carfaayo. waana maasha allah saaxiibayaal, ha moogaanin iyousan idinka dhammaan, ha laga faa'iideyso. waa tareem timaha xalka timihaada oo lagu helo waaye. midda kalena waxaa jirta shaambo ayadana loogu talagalay dadka timaha kasii siimaya oo iyo saliid oo aan ugu talagalnay iyo nafaqooyin oo aan ugu talagalnay oo u hayno. ayagana way jiraan, ayagana kalibi kasoo diyaari doonaa. inta badan aniga hadda waxaan arkaa waxaa kamid a gabdhaha ka cawaadaya timaha dhahayaan alaka timihii naga gurmaayo, timihii mashalay karno, timihii problem naga heystaa, timihii cawashiya naga heystaa. marka insha allah ayagana way ka bixi doonaan, wayna ka nasa doonaan. alaabo la hubo, wax damaanad leh oo dalka lagu sameeyey iyo wax la tijaabiyo oo la hubo dibadda laga keenay sida kareemkan oo kale. runtii yaa lama ogaana saaxiibayaal. wixii kaloo information ah qofkii rabto, qofkii u ii baahan qaybta hoose linki aan usoo dhigi doonaa. nambarka dukaanka, qofkii Nairobi jooga, qofkii Afrika jooga, qofkii oo maxaan ku yiraahdaa goboladan dalkeena jooga, Hargeysa ha joogo, Boosaaso ha joogo, Boorama ha joogo, meel walba ha joogo, insha allah waa loogu geynaa. kareemaad kaloo ayagana waxaa jiraan oo whitening, extra whitening ah oo faceka loogu talagalay, kuwa wejiga loogu talagalay, kuwa jirka loogu talagalay. allahu mustacaan, intaba waad heli doontaan insha allah. kuwaas hadda midaan ugu soo hadli doonaa. qofka xataa oo kareemaadka wejiga, qofka kareemaadka jirka ka haleeyay oo kale, oo kareemkii jirkiisi kala nooc ka dhigay xalkoodii, intaba waa loo kala haaya insha allah. qofkii gadgaduudka wejiga iyo waxaas oo dhibaayay iyo qoraxda dhibaysa iyo qofka wejiga si ka noqday iyo waxaasoo dhan videoan kasoo diyaari doonaa insha allah. balse maanta waxaa naga cusub waa kareemkana runtii kareem laisku sheego waayo. waa kareem boqolkiiba boqol la wada ammaanay. wallaahi ku dhahay soo carfaya wax walba kaaga sii daranba. runtii dadka carafta dhibaysana waa ka xumaa, laakiin dadka carafta dhibeynin bahalkaanaan ku dhahay haddee marsadaan 100% waxaa waaye maasha allah. waxaaba ka cabsi qaba barfuunka jirkooda u marsan iyo geedkan inuu caraftiisa soo hormari doono mar walbo, meel walbo maraya caraf gooni oo wataa. asxaabiya laga faa'iideysto. bahalkan qiimihiisana waa qiimo iska jaban oo iska macquul oo ku raali geli doona insha allah. haddaad muqdisho joogtana waa noo imaan doontaa bakaaro daawada xarunteena ku taalaa. haddaad gobola joogtana insha allah qof wakiilkaaga muqdisho jooga haddaad noo soo diri karta si macnaha aad u qanacdo waa kuu sameyn doonaa. marka insha allah kulley waxaa waaye qiimihiisana qiimo ku raaligeliyo waaye, qiimo macquul waaye, qiimihiisa oo lagu qaadan karo oo maasha allah. runtii xalkii tintaada badii lagu helaba alxamdulilah waa adaaba dhinac u dhaceysa soo maa. marka yaa la moogaan, hana moogaanina. nagala soo xiriira telefoonka dukaanka oo ah 6252
plus 252 618 000 352 waa furaha 2526 eber 352 waa 3 eberaad 352 saaxiib yar soo dhawaada runtii kareemkan kareem oo la hubo waaye waa kareem timahaagii wallaahi daa marsataa ku dhahay maasha allah kurismaduu kuu bixinayo shallada ku raaxaysanaysid madaxaadu kuu carfinayo kan waxaan ku tilmaamaba aqaano saaxiibo asxaabey janaalka hala subscribe gareeyo hala share gareeyo hala like gareeyo runtii waxaan soo dhigi doono wax lasoo tijaabiyo waa mooye wax hadda aniga aan iska dheheyno oo aan iska soo dhig ma ahan markaa lasoo dhawaado janaalkeena noo subscribe gareeyo janaalka madaxa naloo bixiyo saaxiibyaalow idinka maxaa idinku dhacay hoos laba iisii wadaane kor idinka sugaaye caajiska laga qaado asxaabi caajiska laga qaado insha allah waad ku raaxaysan doontaa kareemkan insha allah iyo kareemo kale aan soo waday oo timaha kuwa timaha kuu bixinayo kuwa timaha iyo kuwa jirka iyo kuwii maxaan ku yirahdaa faceka iyo intaba waxaa ku dhahay afaare khatar kale baa la soo wadaa idinka janaalka noo kala kiciye noo bixi anaga idinka waxaa idinku naana mogtaa idinkaana dhiirigeli kartiin dhiirigeliya idinka horena wada kastaan noo wada waxaan wax ku dhaana waa idinka insha allah anigana sida ugu quruxda badan waxyaabo qurux badan ku raarigeliyo ku qanciyo waan soo dhigi doonaa insha allah hadduu ilaa raado saaxiibyaal waana mahadsantihiin janaalkan kilibkan hala share gareeyo hala soo subscribe gareeyo gambaleelka la iska furto runtii waxaas intaas free waaye waa waxaas wax dhibna ma lahan maanta haddaad subscribe gareysa dhiirgelina ii tahay ana insha allah waxaan ku dhiiranaa inaan soo dhigo kareemaad alaabooyin kala kacsano maasha allah waxyaabo qasqas loogu baahna oo loogu maarmi doono waxyaabo badanaa soo wadaa idinka waxaa waaye idinkale madax noo bixiye asxaabe kareemaadka ragga kareemaadka dumarka intaba waa soo wadnaa insha allah waana mahadsantihiin wixii qoraal ay commentiga yaa laga tagin wixii supportin idinka xaggiina waa taageerta hala like gareeyo hala share gareeyo hala soo subscribe gareeyo commentiga yaa la isaga xastin linkiga pageka dukaankan waxaa soo dhigi doonaa qaybta hoose insha allah hala soo follow gareeyo asigana asxaabi mid kale waxaa jirta janaal kale aan leeyahay oo asigana facebooka ah insha allah asna waa soo raaci doonaa hala soo follow gareeyo waana mahadsantihiin saaxiibayaal waxa iga dhiman kaas kaliya wax yar lee waaye hala ii buuxiyo saaxiibayaal oo aligu qaad waa mahadsantihiin